بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. maanta oo bishu tahay 7 bishii 2024 saacadan joognaana tahay 1:11 daqiiqo waxaan halkan ku rabnaa inaan ku daafurno ama ku saacino anigoo ah gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka iyo wasiirkii wasaaradda waxbarashada inuu imtixaankii maanta soo gabagaboobay imtixaankii shahaadiga ah fasalada afraad ee dugsiyada sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland marka koowaad waxaan u mahadnaqaynaa ilaaha weyn ee waaxidka ah ee inagoo nabad qabna oo caafimaad qabna halkan iskugu keenay mar labaad iyo mar saddexaadna ilaahay baan u mahadnaqaynaa kadib waxaan runtii u mahadnaqaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay amniga iyo suurtagalnimadii ay sida dhibka yar imtixaankaasi dalka oo dhan min cirif ilaa cirif uga dhammaaday waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa ciidamada qaranka ee kala duwan oo ka mid yihiin militariga asluubta ciidamada dharcadda cid waloo ciidan ah oo runtii aad uga qayb qaadatay imtixaanaadka bal iyagana u mahadnaqaynaa xaqiiqatan markaan idin warrano waxa weeye wax wal oo isbeddel yari ku yimaadaaba oo la bedelaaba wuxuu leeyahay hawlo yaryar wuu iska wataa isbeddel walba ama change walba wuxuu u baahan yahay system waxa kale uu leeyahay waxoogaa yaroo dhaqdhaqaaqa sanadkan xafiiska imtixaanaadka iyo wasaaradda waxbarashadu waxay runtii ku tallaabsadeen isbeddelo lagu tayeynayo tacliinta dalka manhajka imtixaanaadka iyo wixii la mid ah taas oo runtii ay la kulmeen ardayda sanadkan imtixaanka laga qaadayey oo markoogii horena runtii ahaa waktigii xanuunkii 19 koronaha waxaynu odhanaynay la beegmay bay ahaayeen taasaa markaa waxay keentay iyagoo hore imtixaan horena u soo gelin oo eyrkiina aan laga soo qaadin imtixaankii qaranka oo loo qiimeeyey ayay maantana ku soo beegmeen iyadoo wax isbeddelo ay ku yimaadeen runtii imtixaanaadkii oo la yar casriyeeyey oo isbeddelo yaroo tayeynta caawinaya la sameeyey kow macallimiintii ama dadkii awal ka qayb qaadan jiray oonu beddelay oonu si aan tayadii ula jaan qaadna aan idhi macallimiinteennii dugsiyadeen wax ka dhigaysay aan ka yar diga roganoo bal hadda macallimiintii jaamacadahee loo tegayay marka dugsiga sare laga baxo aan iyaguna nagala qayb qaataan imtixaanaadka si ay noola ogaadaan bal heerka tayeynta iyo siday wax u socdaan waayo intaasoo saro imika imtixaanaadku soo socdeen laga soo bilaabo 2000 laga soo bilaabo ilaa maanta waxaa imtixaanaadka gacanta ku hayay macallimiinta wasaaradda waxbarashada sanadkan baa markaa ku beegantay in macallimiinta jaamacaddana aanu ka soo qayb gelino taasina way ku cusbootay markaa waxyaale haddaad maqmaqlayseen halkaa qayraa ka yeedhay halkaa saasaa tiri waxa way horta intaasay ahayd waana ilaahay mahadi maantana saacadda iminkaan joognana ardaydii iyo farxad bay ku kala tegeen macallimiinta iyo cid waliba wax la wax dhibaato oo la taaban karaana ma jirin runtii xuduudihii Soomaaliland oo dhanna min cirif ilaa cirif buraak kaga soo qabo xaggana ilaa saylac gaarsii intaaba imtixaankii uu ka soo dhammaaday kii hore dhaxana uu ka yimid kii sarena maanta soo gabagaboobay markaa saxaafadda waxaan u sheegaynaa runtii inay sidaas aanu sheegnay xaaladdu u dhacday kulle wixii xoogogaalnimo iyo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada runtii ma taqaanaa faahfaahin doono oo runtii dee isagoo jooga jecelayn weliba uga mahadnaqo sida uu noola shaqeeyo runtii waxa weeye waa wasiirkii ilaa maalintaanu bilownay ilaa maanta aan daqiiqad aanu kala maqnayn runtii wax walbaanu isla xalinaynay waan uga mahadnaqaya waxa kaloo halkan uga faa'iidaysanayna uga mahadnaqo bahweynta waxbarashada guud ahaan gaar ahaan runtii ma taqaanaa xafiiska imtixaanaadka howlwadeenada xafiiska imtixaanaadka waxa kaloo iyaguna kaalin weyn oo mug leh imtixaankaa ku kaalmeynayey wasiirka iyo xafiiska imtixaanaadka oo iyaguna garbaha naga taagnaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha guud iyo agaasimayaasha waaxaha
waxa kale halkan uga mahadnaqaya cid kasta oo mataqaana naga caawisay wax kasta oo ku keen lahaa imtixaanaadka carqalad waxa kale oo aad iyo aad u amaanaya ardaydii sanadkan imtixaanaadka gashay hadday dhaxa ahaan lahayn hadday sare ahaan lahayn oo runtii iyaguna dulqaad u yeeshay wixii ku cusbaa waxaan ilaahay uga baryaynaa xafiis imtixaanaad iyo wasaaradda ahaanba inuu ilaahay iyagana guuleysiyo tacabkooga una khasaarin saxaafaddana waxaan ka codsanaynaa in sidii ay noola shaqeeyeen horena waan u sheegay xafiiska imtixaanaadka saxaafadda waa laga cawdaa laakiin anagu weli may saxaafadda kamaanu caban sababtoo ah had iyo jeer imtixaanaadka ma siyaasadeeyaan siday wax yihiin bayna runtii sheegaan taana saxaafaddana waan uga mahadnaqaya waxa kaloo sanadkan jiro oonu ka qaadina imtixaanka horena u jiri jiray indhoolayaal iyo dhagoolayaal oo iyagana si gaara xafiiska imtixaanaadku ula dhiilgareeyo oo halkan lagaga qaado xarunta manaahijta kuwa ilaalinayaana ay ka mid yihiin iyaga qudhoodu indhoolayaal iyo dhagoolayaal iyaguna ayaa runtii iyo taasina xafiiska imtixaanaadka wasaaraddu ay ku guulaysatay waxaa kaloo jecelahay inaan aad iyo aad si gaara ugu mahadnaqo ciidanka biliiska somaliland oo runtii mataqaana iyaguna baxda iyo dhacdaba la garab taagnaa weliba mataqaana iyagoo imtixaanka qarankana dhowraya ubadkana u naxariisanaya lagula shaqaynaya biliisnimo aabbannimo iyo naxariis runtii waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jaamacadaha dalka qaybtii nagala qayb gashay imtixaanka sanadkan oo iyaguna maadaama hay sanadkii ugu horreysay oo waayo-aragnimo badan dee kolley ay ka maqnayd laakiin haddana si tacajib loo yaab leh noola maangareeyey iyo wada shaqayn oo waxaa meesha ku kulmayey wasaaraddii waxbarashada oo dhowr qaybooda iyo jaamacadihii oo iyaguna dhowr qaybooda runtii iyadana haba yaraatee wax alla wax konfiligta ama is afgaran waayo oo ka dhacay ma jiro taana waan ugu mahadnaqayaa qolada jaamacadaha waxaa kaloo u mahadnaqaynaa guddigii waxbarashada heer qaran runtii ayaan iyagana u mahadnaqaynaa oo hawsha sanadkan nagala qayb galay intaa markaan ka tago waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo inaan imtixaankana si degdega uga hawlgallo anagoo raacayna ama fulina amarkii wasiirka wasaaradda waxbarashada inaan isagana hadduu ilaahay yidhahdo si degdega uga hawlgallo waxaan aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadnaqaya hawlwadeennada xafiiska imtixaanaadka oo runtii muddo laga soo bilaabo January ilaa maalinka maanta aan joogno intay seexdaan hay yar tahay markaan xaqiiq ka hadalno oo waxaan xasuustaa xalay rag ka mid ah xafiiska imtixaanaadka oo kormeer ka yimid ceeri gaaba iyo haddana isla xalay dib hawl kormeer ugu noqday gobolladii ay ka yimaadeen iyagana aad baan runtii ugu mahadnaqayaa waxaa kaloo runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bulshooyinka Somaliland oo aad noogala qayb gashay waxaa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa waalidiintii ku soo tacabtay carruurta imtixaankan ka qaadnay bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waqtiga hadda aan joogno waxaa soo dhammaaday imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalada dugsiyada sare form 4ka ka baxay sanadkan una gudbayay nolosha adduunyada ama jaamacad ha galo ama ha shaqaysto ama meel ha u dhaqaaqo laba cisho ka horna waxaan soo gabagabeynay imtixaankii fasalada 8aad ee dugsiga hoose ee dhexe waxaan halka uga mahadnaqaynaa marka koowaad mahad oo dhan ilaahay baa iskale ilaahay noo fududeeyey ilaahay noo hirgeliyey baa mahadda iskale mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa qaranka jamhuuriyadda Somaliland oo si qarannimo noola shaqeeyey oo hirgeliyey imtixaanka gaar ahaan ciidanka nabadgelyada qaranka gaar ahaan booliska oo runtii sanadkan wacdaro ka muujiyey sida u sugeen nabadgelyada iyo quruxday muujiyeen jaamacadaha dalka ee waaweyn wasaaradda waxbarashada iyo howlwadeenada kala duwan xafiiska imtixaamaadku ahaa ka koowaad ee soo dejiyay imtixaanka maamulaya hogaaminayna iyo ardayda sida nidaamka wanaagsan u gashay ee imtixaanka waxaan diyaarinaynay muddo 6 bilooda qorshahan hadda aan galnay ee ah
qaabka ugu wanaagsan ee kaga takhalusi karno qishka imtixaan waa la galaa maalin walbaba sidee baan u gelinaa kalsooni ubadkayaga sideen u gelinaa inanka iyo inanta imtixaanka galaysa inay kalsooni ku qaadaan inaanay cid kale u baahan ee ay markay dul fadhiistaan warqadda garashadooda iyo wixii ay soo barteen ay ku qoraan warqadda oo aanay hareeraha eegin cidna u baahan horta waxaa ilaahay mahadiya siyaasaddaas qaybtii koowaad oo ahayd in ardaygaasi kalsooni qaado wax badan baa ka qabsoomay oo intii imtixaanka aan la gelin waxaa caddayd in la arkay ubadkii iyo guryaha iyo masaajidda iyo maktabadaha iyo librariyada waaweyn xataa markay ka buuxsameen librariyadu kuraas iyo misas ay waayeen iyagoo gogol dhiganaya oo gogol ku akhrisanaya iyo dirmooyin soo dhigtay waxaa ilaahay mahadiya inay dadaalku aad u fara badnaa imtixaanka markaan bilownayna kulley shay kasta oo isbeddelo la sameeyo culays buu leeyahay xoogaa gadoodaa jiray gadoodkaas runtii garowshiyo ma lahayn gadoodkaasi garowshiyo ma lahayn waayo aan imtixaanka qishee iddaa de wax suurtagala ma ahayn waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa annaga iyo ubadkayagii inaan heshiinay oo aanu 3 cisho ugu dambaysana si nabadgelyo ah oo waayeelnimo aan ku wada dhammaysannay imtixaanku waxaan u bishaareynaa ubadkayaga imtixaankaas dhaqso u soo bixi doonaa dhaqsaa loo ogaan doonaa nataa'ijkooda si ardayga galaya hoose dhexana uu galo secondary-giisa iyo iskuulka sare ka sarena uu galo jaamicadihiisa iyo horumarkiisa kale nololeed uu gali doono aad baan u mahadnaqaynaa waxaan si khaasa iyo walaalnimo ugu ducaynayaa walaalkay daawud axmed faarax iyo xasan qalinle iyo cidda la shaqeysa xafiiska imtixaamaadku si nafhurnimo ah oo weliba raganimo ku jirto oo ay ku jirto waddaniyadii ayay u shaqeeyeen kormeerkaygu ku fara badnaa si joogta u imanaya xafiiska waxaa aniga igu noqotay qariib raggaasoo seexanayn oo aan habeenkii soo jeeda oo kala daabacaya arrimaha imtixaanka lama sheege haddaan idin idhaahdo bishii afraad ee sanadkan imtixaanku diyaar buu ahaa ka warrama wax walba diyaar bay ahaayeen macnihi waxa weeye rag baa u soo jeeday oo kala habeenaya oo kala seexa markaas haddana loogu talagalay arday kasta warqadiisii weliba hadday warqaduhu go'aanna kayd baan diyaarsanay imtixaan oo degdeg loo gaarsiin karo qofkii haddii wax uun ay dhacaan ilaahay ma qadare waxaan runtii ugu mahadnaqayaa khibradda dheer ee daawud leeyahay iyo xasan qalinle iyo runtii nafhurnimadooda in ilaahay abaalna ka siiyo qarankuna abaalkaa uu idin hayaa wasaaradda waxbarashada runtii sanadkan heegan cusub baan gelinay waxaan samaynay call center oo runtii ka samaysnaa xafiiska hadda aan dhex joogno ee imtixaamaadka iyo manhajda isku dhegan oo labada wasaaradda ka tirsan oo runtii dhammaan agaasimayaashu ay joogeen gurmadaanu dirnay ilaa saylac ilaa gabiley ilaa iyo ceergaabo ilaa iyo goob kastaba runtii intaasoo aan diraynayna maamul baan ku diraynay marka runtii waxaan idinka codsanaynaa annagu wariyaashan waxaan leenahay waxbarashadu siyaasad ma gasho ku qalloocin ma gasho su'aal la baadhbaadha ma gasho waa mustaqbal ummadeed ood kulligii soo wada marteen ama aad mari doontaan waxay u baahan tahay marka inaan ilaalino u baahan tahay in tension la kiciyo uma baahna waxaan ka codsanayaa welibana inay maanta waxaan jeclaa inaad ubadka u tagtaan oo aad soo sawirtaan iyagoo faraxsan iyagoo qalin jebinaya iyagiyo mataqaanaa maanta noloshoodii turning pointkoodii ama meeshii ka wiicanaya noloshoodii ee taagan ayaa aad u qurux badnayd imikana waad ku dhiirigelinaya goobtaa ku aragtaanba ubadkii inaad waraysataan farxaddooda la wadaagtaan intaas warku nagaga dhan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu